zaynab cige maxamed waxa weeye fannaanad caan ka ah dalka Soomaalida. waxa ay ku caan baxday heeso jacayl badan oo ay ku qaaday riwaayado ay ka qayb gashay iyo iyana ciyaaraha sacabka iyo lugta ambajaanta laga tumo sida batarka dhaantada iyo kuwa kale oo badan. zaynab cige waxa ay fanka ku soo biirtay sanadkii 1972 muddo imika laga joogo 27 sannadood. waxa ay zaynab ii sheegtay in ay si kama ah oo aanay ugu talagelin ay ku soo gashay fanka. bal hadda markaasi haynoo sheegto halka ay kaga soo biirtay fanka. waxaan kaga soo biiray magaalada Muqdisho annaga oo ka nimid cadan oo aan la joogay Allah u naxariistay islaan ayayda ahayd. islaantu waxay degan tahay xamar nabal orodo kan lacagta ku lahaa bal hadda iga doon halka ay dirtayna waxay jaamacad la foole kaaraan ka soo raacay sitay bandakada uga soo baxo waxaan jaamacad reerkiiba aan ku baydin ayuun baa waxa ii baxday ciyaar batar waxaana bal aamusanaya ciyaaraya horun baan u socday mise waaba magaalo dhan oo halkeerka ciyaaraysa waa iyaba ma odhanne intaan durbaankii la booday ayuun baan ciyaartii ku dhufto ciyaartii baan ciyaaray. waa jaamacadda horteedii? waa jaamacadda horteedii. dadkanuna waa dad la soo ururiyey oo ahaa qoladii folklore dhansiga. maxay ka qabanayeen halkaas? waxa weeyaan ciyaaraha ayaa halkaa lagu ururiyey si debadaha loo saaro oo maxay ahayd toodii ay u noqdaan koox ciyaartoyda ugu horreysay la sameeyeyna way ahayd. marka ciyaartii batarka ahayd markii aad maqashay baad muraaqootay? waan cidba maarsonagan kule cidba lamaan hadalba. haye marka ciyaartee bay ahayd? batar. haye bal hadda waxoogaa ka qaad. day batar waa nin bawsaday niman sabaran sawow belay nin bartay wow buseela. intaa markaad ku qaaday dadkii maxay dareemeen? fanaaniin aad u fara badnayd ayaa horta halkaa joogtay. kuwee baa ka mid ahaa? waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdulaahi ciise sangub baa yidhi oo wallaahi waxbayba noqon kartaa haddii lala qabto. markaa waxaa halkaa ka madax ahaa qoradaa la ururinayay yuusuf xaaji aadan bay la hadlay oo yidhi adeer waxaan doonaynaa inaad kooxdan ku soo biirtid aniguna de koox ku biirba kamaan dan lahayne ciyaartaasun inaan boodaabayba ahayd ballantayadu saan u jeclaa ciyaaraha. markaa odaygii wuxuu yidhi waxaad noqonaysaa adduunkaa lagaa baranayaa dibadahaad u baxaysaa markaa waxaan jeclaan lahayn inaad nala joogtid oo nala ciyaartid. waa tahay baan waxba kaba qabo horta halkii baan joogay. lacagtii baad doontay? maya islaantii dib uguma noqonayay ayaday bilka dib baan ku noqday anigoo markaa u baxaya waddanka Kenya. islaantii way yaabtay waxaa tidhi maxaa talo helay. markii dambe waa loo sheegay halqasta walmuraad halkii baan joogay. markaa halkaa waxaa aad ii gacan qabtay waanigii horeba kuugu sheegay maxamuud cabdulaahi ciise runtii si aad iyo aada mahad ilaah baale deewaanigaa ku soo bilowday. heestii kuugu horreysay tumay ahayd goormaad se qaaday? waxaan qaaday isla 73 qabrigii jacaylkow qurankan ku mariyey ha ka qabaanin oftee u qormee dhexdaado allahayow qiyaamaha intuu nebigu qoraaye allahayow qiyaamaha intuu nebigu qoraaye rabbi qaatakaayel rabbi qaatakaayel rabbi qaatakaayel. heestaas markaad ku qaaday sidee baa loo qaatay? horta qof heestaa maqloon oynin waxaan u malaynayaa inaanay jirin hadday jiraanna waa wax yar
sababtuna waxa weeyaan muujin aan muujiyey dhibaatada aan ka sheekaynaya siday u tahay oo markaa dadkuba run ay moodi jireen anaaba marmar odhan jiray toloma run bahba anigaygan heestani waxay ka mid ahayd riwaayaddii qabrigii jacaylka yaa lahaa riwaayadda waxaa lahaa maxamed cabdulaahi ciise singub imise heesood baa ku jiray waxaa ku jiray 9 hees baa ku jiray marka imise heesood baad adigu qaaday aba aad wax ka qaaday waxaan ka qaaday 8 heesta kalena tee bay ahayd qaradaa mid kale aan waxoogaa ka qaadnay raadiyo jacaylkii kala caganaan jira anaa caawa labadaba la cawaysmaaye waxaad celiyiba ku leedahay ka cawaysmaysa halka laga ciyaare calbiyo wadmooye walaaci sigaygo calbiyo wadmooye ninkaliba macaashaqo markaad heesahaa ku qaaday ma waxaad goosatay markaas fankii inaad ka mid noqoto mase markii horeba waad ku tala jirtay inaad fanka ku soo biirto shacbigii baaba iga dhigayba inaan fanka ku biiraba iyagaaba ii gartay oo yidhi waad ka soo bixi kartaa saasaad markaa ku bilowday marka maxaad fanka u gashay haddii ay sidaa tahay waxaad u gashay lacag ka samayso xoolo ka dhaqo mase jacaylka aad sheegayso ayuunbaa markiiba kula tegey maya lacag ka samayso ismaan odhan waayo lacagtuba waagaa dee waxbaba kumay fadhiin haddaad 100 shilin haysatid taajir baad ahayd soo maa oo lacagtu wax weynba ma yahayn laakiin muxubbo aan anigu qabo jacayl aan qabo fanka ayaanu galay zaynab cige waxa ay ku dhalatay magaalada cadan oo ay ku kortay intii aanay u soo wareegin xagga soomaaliya waxaan markaasi zaynab weydiiyey bal in ay qadar inooga waranto dadkii soomaalida ahaa ee magaalada cadan xilligaas ku dhaqnaa waxaan u malaynayaa soomaali dalka ka baxda soomaalidii ugu fiicnayd inay ahayd tii cadan joogtay waayo ilmaha 6 jir isagoo ah wuxuu yaqiinay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida xitaa haweenkii islaamihii joogay cadan runtii inay af carbeed ku hadlaan way ka xishoon jireen maba ay aqoonin waayo waxaad arkaysa islaamo ilaa 50 sannadood joogay waan haddana mid af carbeeda aan aqoon marka adigu af carabiga ma taqini ma baratay ma aha anigu waan aqoonay cadan baan ku dhashay hooyadayna cadan bay ku dhalatay markii aad fanka aad ku soo biirtay imise riwaayadood baad ka qayb gashay waxa aan ka qayb galay qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xuud baa liqay jacaylkii waa maadays adduunyadu xorriyo haddun baan wax ogaaday